madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo uu helinayo gudoomiyaha golaha wakiilada mudane Cabdirashiid Yuusuf Jibriil iyo mas'uuliyiin kale oo ka kala tirsan golayaasha dowladda Puntland bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa ka qayb galay aas qaran oo loo sameeyay marxuum Generaal Cabdicasiis Saciid Maxamuud Gacmay marxuumka oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladda Puntland Generaal Maxamed Saciid Morgan wasiirka wasaaradda hawlaha guud gaadiidka iyo guryeynta ee dowladda Puntland Axmed Bashiir Muuse Ciro ayaa ka warbixiyay taariikh nololeedka marxuumka Generaal Cabdicasiis Saciid Gacmay waxaan leenahay inna lillahi wa inna raajicuun ilaahay naxariista siiyo waxaan leenahay samad iyo iimaan qoyskii eheladii qaraabadii uu ka geeriyooday iyo dhammaan dowladda Puntland iyo wixii saaxiibo u lahaaba waxaan leenahay waa idin tacsiyeynaa halkaa oo loo wada socdaa waa meel loo wada socdo waa loo kala horeeyaa inna lillahi wa inna ilaihi raajicuun ilaahay jannada ka waraabiyo waxaan halkaa uga tacsiyeynayaa anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca qoyska reer Saciid Gacmay marxuumka Generaal Cabdicasiis Saciid Gacmay Allah u naxariisto waxaan rabaa in yar inaan taariikhdiisa ka taataabto tacsida ka horow generaalku wuxuu ku dhashay magaalada Gaalkacyo 1954 qoyska uu ehlahan uu ka tagay isaga inta ka faracantay waa 720 qoyska waxaan ugu tacsiyeynaynaa inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun markoowaad iyo mar labaad waxaan leeyahay maanta halkan waxaan u taaganahay tacsidaas inay walaalkeen u tacsiyeyno wuxuu ka soo shaqeeyay ciidamada qalabka sida gaar ahaan booliiska wuxuu sidoo kale ka soo shaqeeyo ahaa wasiir ku-xigeenkii amniga Puntland xukuumaddii madaxweyne Cabdiraxmaan Farole wuxuu ahaa xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada muddo 2 jeer ah oo hadda ugu dambeysay maanta waa marxuum waxaan codsanaynaa in loo duceeyo in cid kasta oo wax ka tabanaysana ay cafiso intaasaan ku soo koobay aad baa mahadsantahay gudoomiyaha golaha wakiilada mudane Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa uga tacsiyeeyay geerida marxuumka guud ahaan bulshada Soomaaliyeed bulshada reer Puntland qoyskii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday marxuum Generaal Cabdicasiis Saciid Maxamuud Gacmay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay ha u naxariisto walaalkeen xildhibaan Cabdicasiis Saciid Gacmay oo maanta taariikhdu tahay 14 bishii 8 2022 aynu halkan u joogno aaskiisii inaynu halkan ku aasno oo loo sameeyay aas qaran oo ay ka soo qayb galeen dhammaan madaxdii dowladda Puntland ugu horeeyay madaxweynaha dowladda Puntland iyo dhammaan shacabka reer Puntland inta ku sugan magaalada Garowe xildhibaan Cabdicasiis anoo waxaan garanayaa muddo 10 sano ah waxaan wada shaqayn toos ah iyo mid dadbanba aan wada lahayn ilaa iyo 2019 muddo xileedkii xukuumaddii hore iyo tamba oo ahaa xildhibaan ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada saaxiibkay baan si fiican u garanayo ilaahay u naxariisto anigoo ku hadlaya afka golaha wakiilada dowladda Puntland ee mudanayaasha waxaan qoyskii iyo eheladii uu ka tagay marxuumku iyo shacabka reer Puntlandba aan leeyahay samir iyo iimaan isagana ilaahay waxaan uga baryayaa inuu jannadii firdawsa uu geeyo acmaashiisay wanaagsanayd na uu qaado ilaahay idinkii kelmadda dowladda iyo afka dowladda waxaan siin doonaa madaxweynahan ku soo dhaweynayaa walaalayaal dhammaanteen walaalkeen xildhibaan Cabdicasiis aan cafino dhammaanteen isagana aan u ducayno maanta uu inaga hooseeyaa isagu cafis inagama dalban karo laakiin inagu aan cafino walaalayaal ilaahayna waxaan uga baryayaa in naxariistiisa janno uu ka waraabiyo madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka tacsiyeeyay geerida Allah u naxariistay Generaal Cabdicasiis Saciid Gacmay oo maanta aas qaran Garowe loogu sameeyay gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenka wasiirada iyo xubnaha golaha wakiilada jananada ciidamada qaraabada guud iyo kangaar oo Dr. Dhagaweyn uu nagala joogo walaalkiisa iyo inta kale oo halka sugan waxaan kulligeen ilaahay idankiisa u baryeynaa Cabdicasiis inuu ilaahay naxariista janno waraabiyo dambigiisa ilaahay inuu dhaafo wacdi iyo waana waxaan noogu filnaa intii uu sheekhu noo sheegay maanta waxa uu naga mudan yahay waa duco iyo inaan sugootino inta hadka isugu timid ee sagootinaysa waxay calaamad u tahay in uu ilaahay idankiis ahlu khayr yahay intii halka isugu timidna waxaan rajaynayaa inay iska cafiso
isagana waxaan rajaynaynaa naxariistii janno inuu ilaahay ka waraabiyo annagana uu sabar iyo iimaan naga siiyo eheladii iyo qaraabadii iyo asxaabtii oo dhanna halkaas waa loo wada socdaay waa lagu kala horreeyaa mooyaane inaan maaragtay u diyaar garowno annagana inta gadaashiisna ilaahay inuu nafidnayn wixii la odhan lahaa waa la yidhi inaan ilaahay u barino unbaa noo taagan maanta ilaahay ha u naxariisto qabrigiisana ilaahay ha u waasiciyo naxariis waasica ilaahay ha siiyo eheladii iyo dadkii uu ka dhintay samari iimaan allah ka siiyo ilaahay dembi dhaaf ha uga dhigo maashiisii khayrka ilaahay ha u qaado intiisii kaleetan ilaahay ha ka cafiyo ummaddiisu u soo shaqeeyey dembiyadii ka dhacay oo ilaahayna uu ka cafiyo dadweynuhuna inay ka cafiyaan baan rajaynayaa wasala allah wasalam calaa sayidina maxamed maxamed siciid qoslaaye warbaahinta dowladda puntland garowe.